maxaa dalka Soomaaliya ka socdo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo labada guddoon ee baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood waxa ay wadaan iyo xaaladda dalka uu ku sugan yahay walaaca adag ugu furan oo aaday wala la qabsaday nimankii dardar ku socda say wax u jiraan diyaaradii maxaa ku dhacay ciidamada maxay u soo baxeen adii su'aalahaas isweydiinaysa laakiin maxaa filla Soomaaliya ka socda madaxda qaranka shaqada ay hadda hayaan ma midaana mise wax kale waxa kula wadaagaya waxa filla Soomaaliya ka socdo iyo xaaladda oo dalka ku sugan yahay kadib adigu iswaafaj Soomaaliya ma aday walwal kugu haysa mise madaxdii dalka ka walwalay aragtidaada qaybta hoose faallada noogu reebi kartaa muuqaalkaana waa sii shirgareyn kartaa haddaad nagu cusubtaana nagu soo beer waxaan kula wadaagaynaa dhacdooyinka dalkaaga oo waliba xaalad adag ku jira waayada dadka Soomaaliyeed waxa ay su'aalo badan iska weydiinayaan sababihii keenay in ciidan Soomaaliyeed oo xoog leh ciidan macawis leeyahay ay ka baxaan degmada Aadayabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe sidoo kalena laga baxo deegaano kale oo gobolkaasi ku yaala sidoo kale waxay dad badan oo Soomaaliya is weydiinayaan oo ilaa hadda jawaab u laayihiin waxa ku dhacay diyaaradihii dawladda Soomaaliya ka caawin jiray duqeymaha iyo xataa kuwii ay lahayd dawladda shabaabkan dardarka wada ee cabsi gelinta wada ee deegaanadii qaar dib ugu laabtay sababta ay dawladda Soomaaliya uga hortagi laadahay deegaanadii laga soo baxay dib looga laaban lahaa su'aalahaas ay dad badan is weydiinayaan waxaana dalka Soomaaliya ku sugan yahay xaalad adag oo dhanka ammaanka ah iyo siyaasadda ah laakiin dhibaatooyinkaas u muuqda shacabka Soomaaliyeed iyo walwalka haysta madaxda qaranka mid ka duwan ayaa haysto oo waxaas u muuqda dawaanahan waxa ugu badan ee filla Soomaaliya ka socda toddobaadkii ugu dambeeyay ilaa haddana miiska saaran shaqada ugu weyn ee madaxdu hayaana waa sidii ay u sameeysan lahaayeen isbahaysi siyaasadeed ama urur siyaasadeed shaqadaasi waxa haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre labada guddoomiye ee baarlamaanka sida Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo aqalka sare ah iyo sidoo kale Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe sidoo kale waxa haya saddexda madaxweyne maamul goboleed waa afartii nin ee dalka ugu sareysay iyo saddexdii madaxweyne maamul goboleed ee deegaankooda colaadda ka jirtay waxa ugu badan oo ay ku mashquulsan yihiin waxa weeye magacay qaadanaa logoday qaadanayna xisbiga guddoomiye ka noqonayo hogaamiyaha xisbiga waa nimma madaxweynaha maamul goboleedyada ninkiiba 15 xilli ha keeno sheekooyinkaas ayaa ah assignmentiyada ugu badan ama shaqooyinka ugu badan in laga soo fikiro laga soo tala bixiyo madaxda isku dirayaan miiska u saaran sidoo kale waxa ay ka fakarayaan haddii aan annaga intaan sameynay raggii xisbiga ka tirsanaa ee galmudug ka soo jeeday ee maqaawirta siyaasadeed ahaa koonfur galbeed ka soo jeeday hirshabelle ka soo jeeday sidee ka yeelaynaa waa inaad dawladdu ku soo darnaa inta loo magacaaba inta la geeya shaqada ugu culus ee dawladda hadda hayso waa taas madaxdii qaranka laakiin annaga iyo dadka Soomaaliyeed maxay uga baahnaayeen in Aadayabaal lagu laabto in laga jawaabo Aadayabaal maxaa looga soo baxay cali guduud maxaa lagu noqon layaa ciidankii dawladda Soomaaliya oo ayaga oo 100 gaari ka badan wata Aadayabaal ka baxay oo 5,000 ciidan la leeyahay waa gaarayaan oo macawisle ku jiraan maxay u soo baxeen magaalooyinka kale ee dalka Soomaaliya ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo Hirshabelle isku yiraahdo sidee cadawga looga soo ilaalin karaa looga celin karaa hadda kuwii kana looga laabso su'aalahaas weeye waxa dadka Soomaaliyeed hadda is weydiinayaan jawaabaha u baahan yihiin iyo diyaaradii waxa ku dhacay madaxdii qaranka sababta ay furmaha u tagi laayihiin ciidamada loo dhiirigelin laayahay abaabulka loo xoojin waxaas weeye waxa boogta iyo xanuunka ku haya shacabka Soomaaliyeed laakiin madaxdii qaranka ayaga waxa xanuun ku haya sidee kursigan u sii joogta xisbi siyaasadeed u samaysanaysa sidee anigu ku soo laaban kara adina sidee ku soo laabanaysa intaan intaan ku sameynaya waxba la kala goosanaya sidoo kale waxa jira dhibaatooyin kale oo dhanka siyaasadda ah oo midnimadii dalka iyo wadajirkii halis ku ah waa ogtiin qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada shirarkan qayb kama ahan geedi socodka dawlad dhiska Soomaaliya qayb kama ah sida Puntland iyo Jubaland si la mid ah mucaaradka ayagana qayb kama ah geedi socodka dawladnimada Soomaaliya oo dhowr iyo 30 sano ay la soo dhaafay dalka markii uu burbur galay dawladda maalinba ay heer soo joogtay oo madaxweynaha yimaado wax ku daray la wada dhisay la wada lahaa عصر ولا لاوي مدحتويدي waxa ka socda idis aan ku dhis aad ma santiin dadka Soomaaliyeed ayaa rajeynaya inay fahmeen madaxdooda waxa kurbada ku haya iyo kuleelka iyo ayaga waxa kuleelka ku haya farqiga u dhaxeeyo kooxda argagixisada ah al-shabaab dalka Soomaaliya waxay ku tahay halis iyo dhibaato weyn muwaadiniinta Soomaaliyeedna dhibaato ku tahay deegaan kasta oo ay dib ugu laabteen inta aysan ku laabanin labadii sano ee dawladdu joogtay waxaa laga dhisay isbitaallo kiiba ugu yaraan 2 isbitaal ka dhisan ama hal isbitaal oo weyn
waxaa ka dhisan iskuullo waxbarasho markii ugu horeysay ayaana waxaa laga galay imtixaanka dugsiga sare iyo imtixaanka dugsiga dhexe ee nationalka ama qaranka waxaa laga dhisay garoomo kubadda cagta ah waxaa la geeyey soolaro mashaariic waaweyn laga sameeyey oo korontadii ah internetkii dib u heleen isgaarsiintii dib u heleen ganacsiyaa bilaawday rajo nololeed jirta hadda waxaa soo dhawaa burbureen waa zero ka soo bilaaway isbitaaladii la baabi'iyey xereecidina laga dhigay iskuuladii la baabi'iyey dadkii ka barakacay oo haawanaya waa eber meelaha qaar duqeymo hore u dhacaa lagu baabi'iyey waa wixii hadda soo bilaaway oo qarash galay oo dhiig galay oo dhaawac loo noqday dadka Soomaaliyeed marka waxay u baahan yihiin hadda oo culayska ku haya ee walwalka ku haya waxa weeye midnimada dalka iyo badbaadada dalka Soomaaliya laakiin madaxdeena waxa kurba ku haya oo ayaga culays ku haya sidee kursiga ku sii joogta oo anna ay dhista anna ku dhisa aad oo maasanta aragtida qaybta seefalada noore buuqaalkana si shargaray hadii aad nagu cusubtaana nagu soo biir waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aan siisay waxaan ku siin doonaa wararka Soomaaliya oo xaqiiqo ah ما شاء الله maanta waxaan soo booqday beerta Dar es Salaam waa meel dalxiiska ku fiican cadceedii baan halka ku haynaa biyo bay leedahay cagaarkii xayawaanaadkii baa halka ku nool fardale maxaa ku yiraahdaa kuwa wax cuna hilibka cuna leh xataa aan cagaarka lahayn maxaa ku yiraahdaa libaax leh yaxaas leh dhurwaale waxyaabo badan baa halka yaala marka waa beer runtii anu 7 dal baan dalxiis ku tagay waa la socotaa in alla waxsiin ahay maalto waa tagay Dubai waa tagay Doha waa tagay Nairobi Istanbul halka meel loo dhigo wallahi ma arkin ku soo dhaw Somali Sudanese Specialist Hospital oo ku guuleystay abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa isbitaalka ka howlgala 125 dhakhtar oo 30 kamid ah yihiin takhasusi oo aqoon khibrad iyo takhasus boole daweynta iyo qalimada casriga computerka uu ku jirta CT scan iyo MRI waxa isbitaalka kugu diyaarsan mashiinka kaliyaha lagu dhaqo iyo qalab casri ah oo lagu baaro xididada halbowlayaasha iyo wadnaha laguna furo xididada xirma isbitaalka takhasusiga ah ee Somali Sudanese